xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre oo jirta wax ka yar hal sano ayaa markii ugu horeysay wax uu ra'iisul wasaaruhu ku sameeyay isku shaandheen 3 wasiir ayaa hal mar xilka laga qaaday 3 kale ayaa lagu soo bedelay qaar ka mid ah wasiirada cusub hore waxay u soo noqdeen ama igu soo muuqdeen dawladihii dalka soo maray xildhibaano iyo siyaasiyiin hadda ku sugan Muqdisho ayaa rajo ka qabay inay ka soo muuqdaan isku shaandheyntan laakiin ma suuragelin wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa aqriyay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horeyn xelalkii ay hayeen ka qaaday wasiirada kala ah mudane Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Marwo Qadre Axmed Ducaale wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha iyo mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa wareegto u soo saaray oo ku magacaabay 3 wasiir oo cusub oo buuxinaya xilalka banaanaaday mudane Maxamed Cabdi Xayir Maaree waxa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha koowaad 2018 sidoo kale mudane Cabdi Maxamed Sabriye waxa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 Janaayo 2018 sidoo kale Danjure Axmed Ciise Cawad waxa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah xukuumadda Soomaaliya waxay wajahaysaa mucaarad hor leh maadaama siyaasiyiin iyo xildhibaano rajo ka qabay inay ka mid noqdaan xukuumadda aysan wali u suuragelin hamigooda Cabdiwaaxid Maxamed Ibraahim siyahayaha safaaradda Soomaaliya ee Burundi waxa uu qabaa in la joogo waqtigii madaxda dawladda la siin lahaa fursad ay wax badan ku qabtaan laakiin anigu waxaan oran lahayba dawlad hal sano aan jirin in mucaarad lagu noqdo maba ahanba sababtu waxa waa dawladdii annaga dagaal sokeeyaan ka nimid ma heleeno dawlad dhan oo wax kasta qaban karto sababta waxa waa muddaan kalsoonidii Soomaalida ka kala dhuntay qabaa'ilkii baa islaayay marka waxay qaadanaysaa waa sidii adiga cunug dhasho kala daadaha la leeyahay kala waay dawladda markay soo dhalata hadda marka waxaan aniga aan ku talin lahay aan qof kastana kula talin lahay inaan faraq la qabsan dawladda wasiirada saddexda ah ee cusub waxa ku jiro Maxamed Cabdi Xayir Maaree oo horey u soo noqday wasiirka warfaafinta xukuumaddii waqtigeedu dhamaaday Yuusuf Xasan oo ah qoraa aadna u falanqeeyay siyaasadda geeska Afrika ayaan weydiiyay sidoo uu arko isbeddelka uu xukuumadda ku sameeyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre siyaasadda waxa caadi ah in isbeddel dhacaan isbeddel kastana wuxuu la yimaadaa xiisihiisa mucaaridna wuu yeeshaa dad taageerayaalna wuu yeeshaa marka horta wax weyn ma dhicin isbeddelka xal lagu dhawaaqay waa 3 wasiir oo xilalkoodii laga bedelay oo 3 wasiir oo kale lagu bedelay xaqiiqatan wasiirada la bedelay wasiiro magac iyo maqaam balahay ahaayeen 3duba dadka hadda lagu bedelay oo 3daana runtii waa dad maqaam leh ayay u badan yihiin iyo magac marka waana shay caadi ah in wax la bedelo Aways Maxamuud Julcow Home Cable TV Muqdisho